السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش قيمة بدن رمضان مبارك sidoo kale kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka aynu kula wadaagna sheekooyinka xiisaha badan ee Bollywoodkii koonfur Hindi maxaa ka cusub ciwaanada waxaa qaadanaya filimka Kanaba oo Vishnu Majnu hogaamiyay sidoo kale Bravas iyo Mohanlal Akshay Kumar ee garab siinayaan filimkan 25 bisha Abriil soo baxaya laga soo bandhigay teaser waa mashruuc tafaaful lacag fara badan la galshay loona arka Vishnu Majnu inuu ku soo laaban doono actor dhalinyaro ah dhankaasi Telugu laga dambeeyay dhawaanahan shaashada ka dhacay sidoo kale tan aabihiis ninka lagu magacaabo Mohan Babu oo superstar ah sagaashamaad sideetamaadkii laga dambeeyay filimkan asagana door kooban oo ku leeyahay wuxuu sidoo kale qayb ka yahay producerada marka Kanaba teaserkiisa ciwaanada heesto ayadoo xitaa Bravas teaserka uu soo galay aad loo amaanay waxa la marka filimka Kanaba magaca Bravas kaliya ku filan iyo sidoo kale dabcan qaabka uu gadi karo inkastoo tafaaful uu yahay laga yaabo riskigiisa inuu wato haddana waxa la sida loo dhigay cinematic ahaan filimkan goobaha lagu duubay qaabka uu yaalo waxay ka dhigan tahay marka luqadaha kala duwan lagu daawanayo in uu gadmi doono T-series gadaalka riixayso sidoo kale tan Vishnu Majnu hogaaminta uu qaadan doono kaligiis wax ma gadi karo laakiin xarfaanta uu soo watay Kumar doorka kooban uu ku leeyahay Bravas marka uu soo galay shaashada screen-ka si uu dab iyo holac kaga dhigay kulligan wad aragnay rag waaweyn loo soo kaleeyay ninkan laakiin waxay ku xiran tahay hadba sidee daawadayaasha u soo dhaweeyaan waxa isleeyahay marka Vishnu Majnu filimkan aabis xitaa waa kaga jeeda goosgooska ama teaser kooban la soo bandhigay Mohan Babu asiga filimkan kaligiis ma gadi doonee dadka waxay tigidhka u qaadan doonaan si ay u garab istaagaan Bravas iyo Akshay Kumar dadka soo muuqan doona Mohanlal taas waxa la marka noqon doonto factor kale oo filimkan si fiican u caawin doonto kulli akshamada ku jira iyo dagaalka seefaha iyo inaba caadi ma waxba soo socdo oo filim qaab si heer sare loo sameeyay caalami ah sida teaserka aan ka arkana laakiin halka culays waxay tahay waxa waa Vishnu Majnu lacag ya u quuray Akshay Kumar u jira tafaaful matalayo tafaaful abis ka soo dhigay laakiin waxa ka sameelo ii fadhiyaan kan wax macna ma sameeyna laakiin Mohanlal asagana safety suu wata soo garweyn loo ka soo muuqanayo bromada sida kaga jeedo waxa kale oo ciwaanada qayb noqonaya laakiin marka uu soo galo Bravas wax yar Bravas wajigiisa gadaal uu ka soo muuqanayo xanaaq ka muuqdo intensity-ga nibciina wajiga waa soo marsaday dabcan calaamadii diilinta caday laakiin gadaal marka ka soo muuqanayo xanaaq ka muuqdo Bravas lug intaas aba teaserka waxay noqoto waxaan caadi yahay aragtidaas Bravas qamarjinimada ka soo muuqanayo laga yaabaa inuu u gadmo filimka Kanaba si kale oo naflo had u gadmi karo ma muuqato dhinaca kale saaxiib waxaan soo qaadan karnaa filimka Java ayaa jimcadii saddexaad wuxuu garaacay Pushpa 2 waxa la marka filimkan Third Friday haduu Pushpa 2 garaacay waxay ka dhigan tahay 500 kor la isku heesto bisha Mars oo maanta kow in waxay u badan tahay inta bishan ka dhiman inuu magaalka uu si heesan doono Vicky Gushalne hadda waa ugu jirtaa sida hadda la soo daawacay shabakada caanka soo daawacay saaxiib lagu magacaabo Sonic waxay leeyihiin filimkan wuxuu soo xareeyay 11.30 karoor Pushpa wuxuu keenay 11.30 karoor jimcadii saddexaad markii bishii December uu soo baxay dabiiqadii sanadka hore Third Friday 11.30 karoor Pushpa keenay qaybta afindiga laakiin Java wuxuu soo xareeyay 13 karoor uu keenay taas oo ka dhigtay inuu yahay taariikhda film jimcadii saddexaad ugu lacagta badan Pushpa 2 toddobaad saddexaad ama toddobaad saddex maalmood ugu horeyso wuxuu keenay 58 karoor third weekend haddana Java waxay u badan tahay lacagtaas inuu ka tilaabi doono oo laga yaabo noqdo filimkii ugu horeeyay taariikh ahaan weekendiga saddexaad keeno lacag gaarayso 60 karoor sadartay marka hadda Java waxa la uu soo dhigtay filimkan sida muuqato mana hakanayo rikoora inaba caadi ah ayuu sameeynaya halka sheekada markay maraysa saaxiibayaal waxa la leeyahay go'aankii ugu saxsanaa ay qaateen Maddox Films markii Pushpa 2 ay u banayeen magaalka 5 December sababtoo ee rikooradii Pushpa 2 uu sameeyay waa ka warqabnaa sidoo Maharashtra u girgilay sidoo iskoor u sameeyay iyo qaabka uu qarabtay ilaa ay 700 ganacsigiisa u gaaray haddana waxa la Pushpa markii la fiirsho booskiisa Java marka uu soo baxay asigana oo uu baneeyay 5 December kadibna uu 14 Febraayo Maharashtra iskooradii Pushpa uu dhigay cagtu mariyay hadda heer wuxuu maraa Pushpa oo la tartamayo toddobaadka labaad toddobaadka saddexaadna uu dhaafay Maharashtra oo ka ganacsi badan waxa la marka labada film waxay ahayd smart decision go'aankii ugu saxsanay ee laba film dabcan la kala weeciyay same target noqon la Maharashtra record uu ka sameeyay Pushpa 2 uma soo gal inkastoo Java uusan la mid ahayn Pushpa 2 oo Pushpa 2 uu weyn haddana la goysmo ku noqon la marka laba go'aan oo saxan waa Pushpa 750 karoor 730 karoor 40 karoor gaaro kana uu gaaro doono 500 karoor lacagta nadiifka ah waxa la marka Maddox Films go'aankii ugu saxsanay qaateen inaysan qubqac iyo kalash aysan la galin ninkii odaga Allu Arjun oo magaalka u banay marka waa point kale oo laga hadlay waxa kale oo la soo qaatay Vicky Gushal waxa la saaxiibayal naga superstar ma noqon doona superstar ka xiga sida Ranbir Kapoor oo kale maadaama Java cirku ku galay post Java waxay noqon doontaa tilaabooyinka wiilkan uu qaali doono inuu aad kaga fiirsado ninkan waxa la jilinkis inaba caadi ma ahan Sam Bahadur oo kale 2023 markuu sameeyay film Crash la gal
animal ayaa ganacsanadan waxaan ka warqabnay 100 karoor uu gaaray haddana waxaa leeyahay wuxuu kusoo laabtay filim kale oo xiiso badan Javo la imaada kaligiis hogaamiye ka yahay ganacsigiisana 500 karoor uu gaari doono haddaba waxaa leeyahay marka actorkan sanadka hore xitaa wuxuu la imaaday filimkii Bad News oo iska average ahay inkastoo dance uu ka sameeyay heeskii Tauba cirka uu ku galay filimka laakiin filim hiida ma uusan ahayn hadda waxaa leeyahay marka wiilkan banaanka ku dhacay Uri oo 2019 uu sameeyay Sam Bahadur Java iyo filimo kale waxaa leeyahay marka sanas iyo xitaa Zarahadka Zarabajke waxaa leeyahay marka ninkan banaanka ayuu ku dhacay projectiyada dambe dooran doona Java kadib waxay noqon doontaa inay noqonayaan filimo waaweyn oo big budget ah hadda filimka ugu soo horeeya ee la filan doono xidigan la imaanaya waa mashruuca xiisaha badan ee la wada sugaya saaxiibayaal ee lagu magacaabo Love and War oo Ranbir Kapoor uu la sameeyay Alia Bhatt door muhiim ah ka qaadan doono Sanjay Levan Sarin iska leeyahay marka Love and War haduu u sii gadmo ninkan waxaa leeyahay marka inuu banaan ku dhici doono isku meesha inkastoo filimkaas RK iyo Alia Bhatt hogaamiyalka yihiin asigana kulli doorka la siiyo wuxuu noqon doonaa door kale uu ku tashan doona sababta ninkan uu aad u yaqaana filimada kama cabsad hebel ku jiray ma yaqaan doorka uu qaadanayo dabcan space hadii la siiyo NF waliba Love and War Sanjay Levan Sarin waxaa la aad u tixgelin doonaa Vicky Gushal maadaama daawadayaal uu hadda noqonayo ninkaneeto actor banaankiisa ku dhacay Java kadibna uu banaankiisa imaada sida muuqato dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa ciwaanada qaybkee markii la fiirsho dhanka waxaan u jeedaa saaxiibayaal ee Sankarantika Fasunam ayaa xaray lagu soo fasaxay barta OTT-ga ee barta Z5 filimkan la soo galiyay insha Allah haday suura gasho caawa daawan doona asigoo af Soomaali ah Sankarantika Fasunam waa ka warqabnaa 14 Janaayo soo baxay Blockbuster wali u ahay ganacsigii 300 karoor ku dhawaaday Vantikeshna comeback aan inaba caadi inuu ku sameeyay labada gabdhood ee kale ee markii la fiirsho Ashwarya Rajesh iyo Manakshi Jawdari dooran caadi inay qaateen Anil Ravipathy filimkan qaabka daaragtanimadu agaasimana sheekada iyo habka uu dhigay shactirada iyo commercialkana inaba caadi maahan ugu dambeyntii marka barta Z5 la soo galshay ayadoo luqadaha Hindi Tamil Kannada iyo Malayalam iyo Telugu ee lagu daawan karo marka wacdaraha weekendigan uu ka dhigay OTT-ga ayaan sugan doonaa Sankarantika Fasunam tonight insha Allah haday la dadaalo waxaan isleeyahay waa la daawan doonaa filimkan xiisaha badan dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa actorka lagu magacaabo Sandeep Kishan ayaa sheegay inuu daawaday 45 daqiiqo oo filimka Kooli ah Rajinikanth hogaamiye ka yahay waan yaabo dhaasay location waxa sameeyay gacmaha madaxa saartay sidoo kale tan wuxuu dhayaan laga shakin filimkan waan hubayo in 1 karoor ganacsigiis dibad idal uu ka tilaabi doonaa Rajinikanth iyo soo kale dabcan ninka lagu magacaabo Lukesh Konrad fariinta ay ku midoobeen waa fariin qof kasta uu filan doono ganacsi waali inuu sameyn doono markaan Sandeep Kishan actorkan jilaaga ah ee doorar kala duwan qaadan karo wuxuu leeyahay markaan daawado Kooli 45 minutes ugu horeeyay waxa la soo bandhigay waxa la isku dabriday waa waali marka wuxuu leeyahay la shakin waan hubayo wada filimkan uu noqon doono blockbuster-kii ugu weynay mudan Rajinikanth uu sameeyo wiilkan wuxuu sheegay filimka Kooli qayb inuusan ka ahayn laakiin Lukesh Konrad saaxiibo ay yihiin sadka uu tagay kadibna 45 daqiiqo kamid ah filimka uu daawaday kadibna uu yaab wax waali uu arkay filimka Masaka tiyaatarada u saaran wiilka lagu magacaabo Sandeep Kishan oo jaliinkiisa lagu amaanay laakiin wuxuu leeyahay aniga waxaan soo arkay waa yaabi doonto inuu ka dhawaajiyo Kooli waa film la wada sugayo sidoo kale tan u badantay 14 Agost inuu soo bixi doono toddobaadka xorriyadda Hindiya filimkan 70% shaqadiisa waa la soo gabagabeeyay wax yar ayaa dhiman inta dhiman waxaa la dhameystiri doonaa inta aan la gaarin bisha Abriil ayadoo markii laga soo tagay Rajinikanth sidoo kale filimkan uu ku jiro Nagarjuna oo Bindara soo wiilka lagu magacaabo actorka lagu magacaabo Sobin Shahir Satyaraj xitaa Amir Khan ayaa door muhiim ah ku leh dhinaca kale Shruti Hassan Atirisha kuwaadi ka tahay Buja Hajji halhaas ay ka qaadi doontaa gabadha lagu magacaabo Reba Monica Johanna ku jirto iyo shakhsiyaad kale ka soo muuqan doona musicadan waxaa garaacayo daawadayaasha qadan wiilka dhalinyarada lagu gaar dhanka musicada lagu magacaabo Road filimkan waa mid kale oo xiiso badan waa mashruuca 171 Rajinikanth hogaamiye ka yahay waxa la amaano waayahay filimkan sababtoo sida loo sugayo inaba aanan caadi ahayn dhinaca kale waxaa soo qaadan karnaa oo ciwaanada qaybkee markii aan filino dhanka waxaan u jeedaa filimka Layla oo Fishwaxin hogaamiye ka tiyaatarada ku fashilmay asigana bishan ayaa ama toddobaadkan la soo gelin doona barta OTT-ga sida shaaca laga qaaday Layla wuxuu noqonaa mashruuc kale oo dabcan Fishwaxin uu rajana OTT in laga soo dhaweey kadib markuu ku fashilmay tiyaatarada projectigan saaxiibayaal waxa la dhawaan ayaa la film daawan doona toddobaadkan ay u badan tahay 14 Febraayo Layla soo baxay big follow uu noqday laakiin hadda waxa la 7 bisha Mars waa jimcadan ama khamiistan ayaa jimcada say u badan tahay waliba ka soo khamiista u badan tahay in la soo gelin
jumcadan exactly aan dhahe ayaa lasoo gelinaa barta Amazon Prime Video filimka Layla sida lasoo daabacay isla sidoo kale tan filimka Tandel oo hogaamiye uu ka actorka la wada jecel yahay Naga Jatanya 7 bishii Febraayo soo baxay super hit noqday ganacsigiisa 100 karoor ku dhow asigana toddobaadkan ayaa la sheegay saaxiibayaal toddobaadkan maana kan kale 14 Maars shaaca laga qaaday muddo bil markuu tiyaatarada saarnaado in la soo gelin doono barta caanka Netflix marka jimcadan soo socoto waa Layla kan ku xigta ayuu noqon doonaa filimka Tandel sida hadda la soo daabay 14 Maars soo bixi doona hadduu alla idmo marka nasiib waxaan leenahay actorka la wada jecel yahay ee lagu magacaabo dabcan Naga Jatanya iyo xidigta caanka Saybalaba filimkooda super hit ka noqday kulli OTT-ga hadda loo soo wicin doona waxaan sugan doonaa xitaa saameynta Netflix uu ka dhalan doono kadibna anagana aan wada daawano waa isla qiimeyn doonaa hadduu alla idmo aqyaare marka sheekooyinkaas galinka hore jiraan soo qaadanayna barnaamijkan intaas soo nooga egyahay mar kale waxa idin leeyahay Ramadaan Mubaarak haddii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe inoo saar. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.